أنت كذب هذا الدور الشديد نور ماتي اللي بنظر الدورت واجبات كمان أنت هريلا إلهي هذين كوا أسطور حلك ويدينهم بليانية كوا الشلي دور الشديد العضي يكوا إيمانة العضي يكوا كزي الريبة وحنوهم بليانية أنت لا ترتنطي وتنسي شيء أما أنت عدك لجاه لي أقبل شيء أيين وأقول استين وأقول كلا waxaan kala u mahadcelinayaa isqabqabsiga iyo damaca markuu adkaaday dadkii ayagana walaalahood u tanaasulay oo Dr. Ali Ahmed Ali Dr. Ali Malaq oo hadda nagala socdo oo aan xusayo aan hilmaami karin gudoomiyihii degmada Garbaarey Imaan Cabdo Karsho oo asagana musharax ahaa oo u tanaasulay aman iyo kuwa kale oo fara badan oo ayagana تنسلوا مقعدنا سوكو بكرين محايا لي walaaluhu iyo bini aadam kaba kugusan caanaha subag ku dhalaan baa leeyahay wax kasta oo dadka soo dhaxmaro hadii aday kugu fiicanta la yiraahdo guusha waa qofka waa guulist adduunka aakhirada wuxuu raadinay wax ka khayr badan ilaahay baa siinay kii loogu duceeyna khayr bay u noqonaysaa kuwana waa mahad celinaya in mahad celintaas markay naga dhamaato aniga maanta waxaan rabaa arrin garnaqsi ah hadal garnaqsi ah inaan goobtan ka soo jeediyo waxaan rabaa inaan la garnaqsado madaxweynaha Soomaaliya walaalkay in adeerkay maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynuhu in adeero dadka gobolkan ku nool iyo bulshada reer Jubbaland xadgudubyada kaaga imaanayo oo sanadaha socday oo xeerkii dalka iyo dastuurkii aad ku dhaaratay ka baxsan naga jooji way nagu filantay maxaa yeelay deegaan doorashadan ceel waaq maanta ka dhacday waxay ahayd in Garbaarey oo magaalo madaxda gobolka lagu qabto maxaa sababay inay inta jiitanto oo halkan timaado adaa sabab u ah qalwadii masbaa galay amar khaldan iyo direction khaldan umad aad siisay iyo taladaada guracan ayay suurtagal ku noqon weyday magaalo madaxda gobolkan in doorashada lagu qabto oo u qalantay taas oo gaal iyo islaamba ay maanta marxaati ka noqdeen oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay marxaati ka noqotay oo ummadda reer Jubbaland oo dhan ay marxaati ka noqotay sababtayna in la bedelo oo guddigii hirgelinta doorashooyinka heer federaal ay bedelaan oo ra'iisul wasaaraha doorashada hogaaminay ku raaco oo la yiraahdo waa gar maanta halka lagu ma qaban karo degmada kale oo lagu qaban karo oo dadku wax wada leh wada tagi karaan oo ku tartami karaan ha loo wareejiyo sidaas ayay madaxda ceel waqti joogto ama heer maamul ama heer amni iyo salaadiinta iyo shacabka reer ceel waqay maanta sharafta ku heleen in la yiraahdo ayaga mudan maxaa yeelay inta waxa ka dhaxeeyeen meesha kale wada tagi karaan ayagoo kala aragti gidisan kala fikir ah kala damaca oo ku tartami karaan oo sidaan oo kala hawshooda ay ugu dhamaan kartaa ayay ceel waq ku guuleysatay magaalada madaxdii sharafta lahayd oo aan runtii aad iyo aad ugu xumahay kana xanuunsanay taariikhdan sheegi doonto waxaad geysay ciidan amar ku qabo in dadka gobolkan ay kala qaybiyaan la diriraan sharciga baal ka maraan annaga ayna dilaan hadda taa samaysay 16 xildhibaan baa gobolkan ku asteysnay 16 ka xildhibaan adigu mana badinaysid mana yareynaysid 2004 bishii 8aad 22keedii meesha lagu astay bay joogaan beelihii lagu calaamaday baana wili leh ma badin kartid
mana yareyn kartid beelihina kama bedeli kartid oo doorasho qof iyo cod waa ku guul daraysatay oo way isbedeli lahaayeen haddana beelihii baa qaatay ku tartamay helay mushkiladda kale ka daa waa nagu filan tahay mushkilad intaad nagu samaysay ka daa waxaad doonaysaa cod 2012 waa tartantay xildhibaanada gobolkan ka soo baxay cod baad ka bariday waa ku siiyeen maadaa soo xushoo keenay maadaa lacag ku bixiyey way ku siiyeen madaxweynaad noqotay oo 2000 iyo maxay ahayd 17 Febraayo Kismaayo lagu wada doortay dhammaantood cod baa weydiisatay waa ku siiyeen war maanta haddii musharax tahay cod weydiiso qofka walaalow codkaada siibaad ku leedahay laakiin inaad meelo kale isku qaado macna kuma samaynayso xildhibaanadii waa soo baxeen gogol dhigo xodxodo cod weydiiso wixii intaa ka baxsan oo samayso haddii kumana shaqaynayso adigana cadaawaddii waxaad kala kulmaysaa iyo taariikh xumo waad kala kulmaysaa annaga gobolkan baan ku dhalanay 30 sanaan ka khidmaynayni biwaayo iska xusho tacabka iyagii oo dhan baad burburisay waxa la wixii tacab ahaa oo ummadaas midnimadooda ahaa oo horumarkooda ahaa baad burburisay maamulkoodii baad burburisay ammaankoodii baad burburisay garsoorkoodii baad burburisay waa maxay waxa kaaga lumay oo Soomaaliya gobolkan kaga gedisan yahay beebihii Istanbul Soomaaliya ka heshay iyo birgeerkii buuraamiro wadariska ahayn iyo boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo qarannimadii ku qabaansatay intaad adeegsatay inaad annaga nagu beegsato xal ma oo amaankiyagii iyo midnimadayadii ciidankii baad kala qaybisay maamulkii baad kala burburisay bulshadii baa kala qaybisay adeero billah عليك madaxweynuhu ina adeero inta way nagu filantay gobolka iyaga iyo state-ka iyaga ka joog wallahi way nagu filantay enough is enough halkan ilaahay baa inoo khalqay Kenya deris la nahay 900 kilomitir Ethiopia deris la nahay macaabil walaalnimo ay naga dhaxay qaranka iyagii markuu burburay waa cuskanay iskuuladoodan baranaa deeqda cross border nooga timaado waa macaamilna nalka nooga yimaado sharciga nooga yimaado cadow nooma ahay adigu danahaada guraacan iyo ummadda Soomaaliyeed jahawareerka ku sameynaysa kada halka ciidan am Soomaha ceel waqtigan garbaareen ciidan am Soomaha jooga waxaad ummadda Soomaaliyeed leedahay garbaareen waa meel Soomaaliyeed ceel waqna waa Kenya oo laba ciidan oo am Soomaha sharci ku jooga dalka oo mid walba ammaanka ka nagala qayb qaato marka garbaareen Ethiopia bay noqonay ceel waqna Kenya bay noqonay waxa sax maaha ummadda jahawareerinayso iyo dadkan xilkaska ahayn oo sharafta gobolkan iyo shacabkan aad ku qarribtay ummadan oo caaytamay oo waajibaadka siisay tahay inay bini aadamka caayaan ka joog shaatiga qaranka iyo madaxtinimada iyo xeerkad ku dhaaratay iyo ilaahay dartii nooga xisho waa bil Ramadaan aad iyo aad baa mahadsantihiin hadalka waa garnaqsi waana caqabad نهر تاجن وي